Oh yeah! kulantii waxaana wanaagsan daawadayaal meel kasta joogtaan waad ku mahadsantihiin waqtigiina qaaliga oo had iyo jeer aada noo soo hurtaan si aad barnaamijka ula socotaan magacay waa maxamed daahir xasan daawadayaal baryahanba waxaa ka socday waddanka canada gaar ahaan magaalada toronto barnaamijyo la doonayo in lagu ogaado nolosha dhalinyarada soomaalida waxaan ognahay in toddobaadkan boqolaal ay ku geeriyoodeen badweynta cad oo loo yaqaano mediterranean-ka halka kuwa kalena ay ku geeriyoodeen magaalooyin kala duwan ee waddanka canada iyo caalamka daafihiisa haddaba barnaamij arrimahaas ku saabsan ayaa lagu qabtay kana socday masaajid ku yaala magaalada toronto imo loo yaqaano dadka soo qabanqaabiya ayaa ahaa haweenka ama hoyooyinka ganacsatada haweenka ah sidoo kale dhalinyarada ama gruubkii hore u qabtay nolosha ubadka soomaalidu waa muhiim barnaamijkii ahaa oo gabdho iyo wiilalba isugu jira iyo dad kaloo aada u fara badan waxaa kasoo qayb qaatay ciidanka booliiska oo halkaa laga dhageystay barnaamij ay soo gudbiyeen gabar soomaaliyeed oo tababar ku jirta ayaaba kamid ahayd dadkii halkaa ka hadlay sheegtayna inay dhawaan noqon doonto iyadoo xijaab xiran ciidanka booliiska sarkaal ka tirsan isla docda kale hay-adda daryeelka caruurta ee loo yaqaano children aid society oo horkacayo siciid yuusuf diiriye ayaa iyaguna halkaa yimid kana hadlay barnaamijyada ay qabtaanna kasoo jeediyey dumarka soomaalida oo lafdhabar u ahaa barnaamijka qabanqaabadiisa ayaa iyaguna halkaa ka hadlay waxaa kaloo aada loogu qushuucay khudbad dheer uu soo jeediyey wiil dhalinyaro ah oo muddo 2 sano ah xabsi ku jiray kana soo baxay kaas oo uga warramay dadweynaha dhibaatada haysata dhalinyarada soomaaliyeed ee xabsida ku jira waxa ay la kulmaan waxa ay noqdaan marka ay kasoo baxaan iyo sida loogu baahan yahay in gacan loo geysto lana caawiyo xabsida loogu tago lagu booqdo isla markaasna waxay u baahan yihiin loo fidiyo ama loo gudbiyo waxaa kaloo haweenku ay ku nuxnuxsadeen baahida loo qabo in la helo goobo waaweyn oo ubadka iyo dhalinyarada wax loogu qabto center meel ah oo ganacsiga iyo waxba ay ku jiraan waxaa iyaguna halkaa ka hadlay gabdho dhalinyaro ah oo iyagu barnaamijka dadkii soo qabanqaabiyay kamid ahaa waxayna aada uga hadleen joogteynta barnaamijyada noocan oo kale ah hase yeeshee nasiib daro isla habeenkii ku xigay oo axadda ahayd ayaa saacad dambe saqbarkii lasoo sheegay in wiil soomaaliyeed lagu dilay bartamaha magaalada toronto wiilkaas oo magaciisa la ohan jiray cabdulaahi cabdiraxmaan caynab ayaa toddobaadkan dabiiqadiisii lagu aasay xabaalo ku yaala duleedka magaalada toronto dad badan baa kasoo qayb qaatay isagoo meydkiisa la geeyey masjidka khaalid bin waliid waxayna dadkii halkaa kasoo qayb qaatay sheegeen in loo baahan yahay in ubadka aada looga warqabo oo dadka soomaalidu ay fadhiga ka kacaan maskax iyo muruq iyo maalba isku biiriyaan sheekh abubakar sheekh xuseen waa maamulaha masjidka khaalid bin waliid ayaaba sheegay inaan la sugi karin in goobo la iibiyo laakiin goobo kumeel gaar ah waa in la qabtaa ayuu yidhi waxaadna arkaysay dhalinyaro iyo dad aada u fara badan oo aaska wiilka kasoo qayb qaatay isla docda kale subaxnimadii khamiista ayaa ciidanka booliiska iyo saxaafaddu waxay la kulmeen waalidka dhalay marxuumka waa cabdulaahi cabdiraxmaan caynab waxayna aada uga hadleen baahida loo qabo in laga hortago lala shaqeeyo ciidanka iyo waxyaaba badan oo arrintaa lamid ah providing the media and the public an update into homicide number 26 of this year. Good morning and thank you for coming here today. So I've called this press conference today to update. So what you can see is Mr. Farah is in the company of 2 individuals and he arrives at about 1:26. He's now on the other side in front of the cafe. Our suspect vehicle, what I did not mention was at the time when Mr. Farah and his company arrived, our suspect vehicle was proceeding eastbound. We obviously have an idea of what the car could be, but without some confirmation and some help from witnesses, it's really hard to identify. A number of different vehicles were moving. A lot of the vehicles look the same these days. They do. And they just blurred out once the lights come on at the back. Assalamu alaikum. Hello. I'd first like to start by thanking everyone for their condolences and their well wishes. The outpouring of support that our family has received
Our house has been full for the past few days with countless people coming by to share stories and memories that they had with Abdullah. To see that our brother was loved by so many has been one of the few sources of comfort that our family has had during this rough time. Abdullah was a bright, caring, and full of life. He had 3 brothers and 4 sisters that he grew up with, countless cousins and relatives, and an unbelievable number of friends that he made his family. To know Abdullah was to love him, and those who knew him are better people for having met him. Abdullah was a huge basketball fan, proud mama's boy, and he never left the house without giving one of us a hug. He had goals and aspirations in life that were cut short all too soon. The content of his character is one that continues to inspire, and his love and commitment to his family and friends is beyond memorable. We hope that as brothers and sisters, we can come together to support each other as a community. Abdullah's death was beyond heartbreaking. It's something that no family should have to go through. Unfortunately, it has become an all too common occurrence, especially in our city and particularly within the Somali community. And almost all of these deaths go unsolved. We would like to also take this opportunity to clear up any misconceptions and set the record straight on the nature of Abdullah's death. Our family is deeply disturbed by the recent reports in the media suggesting that it was confirmed that our beloved brother was the target of this crime. I want to make this clear. Our brother was not involved in any gang activity, he was not known to the police, and he did not deserve to have his life taken so abruptly. Reports suggesting that Abdullah was involved in anything of that nature are not only inconsiderate to our family during this rough time, but we strongly urge the members of the media to think about the way that they choose to approach reporting and the way that carelessness in reporting often criminalizes and stereotypes many victims that are members of marginalized communities. Our brother was killed by a bullet, and we don't want his character assassinated as well. We would like to urge anyone with information to please step forward and assist the police with this investigation. There's a number of ways in which you can do this anonymously. We can't emphasize enough how any bit of information is crucial to this investigation. And finally, we'd like to use this opportunity just to hope that our family is the last one that has to go through something like this. Let's hope and pray that no mother, father, sister, brother, aunt, uncle, cousin, or friend has to go through what our family is going through. As first-generation Somali Canadians, we know the story of struggle. Many of our families have escaped hardships in Somalia only to experience a new dangerous reality in our communities here. There's a whole generation of innocent Somali men that are being murdered in the streets, innocent young men who are just in the wrong place at the wrong time. We as a community need to come together to ensure that this does not happen to anyone else. We need to figure out a way to stop this. ummadda in la kiciyo oo la isku duumo oo la isku xirmo sida xal looga gaari lahaa dhibkan haysto isku xiritaankii ugu horeeyay waa arkaysaanba hooyooyinkii magaalada Toronto labada group oo ka mid noqday campaign-kan iyo ololahan kacdoonka waa dad ayaga sidoo kale horey wax u soo qabtay oo dadaalaya dadaalkan annaga wadnay iyo dadaalkii wadeen markii la isku biirsado ee kuwa kale ku biirsamaan ayagana dadaalaya dadka dhan ay ku soo biiraan isbeddelka uu fududaanaya because far kaliya foolma dhaqdeeda Soomaali dad badan oo dadaalo oo kaligood wax qabtaa jiro community waa furan yihiin magaalada dad badan oo mainstream organizations ku shaqeeya jiro outreach workers badan mental health worker consultants this and that wala badan yahay shaqada waa min qof walba dhinac kaga jira community-ga dad badan wax u qabto laakiin individually effective maana noqon 25 sano isbeddelka aan wali raadinayna intaas oo dad wax soo qabanaya waa imaan way wali waa cala calena wali waxaan leenahay dib baa jira so that means there's something waxba qaldan waxa qaldan annaga waxaan u aragnay Somali Canadian Youth Matter hadaan nahay waxaan u aragnay midnimada in la helo marka hore because midnimo ayaa guul lagu gaaraa oo waxyaabaha dhibka jira aan kaga hortagi karnaa so midnimadaas way bilaabatay way socotaa hooyooyinkan isku biirnay oo groupkan ku soo biiray Somali Canadian Youth Matter ololahan kacdoonka ah waxaan rajaynaynaa dad kale oo badan oo Soomaaliyeed magaalada Toronto iyo Canada oo idil because dhibka Toronto kaliya ma ciyaalkeena Edmonton ay ku dhimanayaan Calgary ay ku dhimanayaan Ottawa ay ku dhimanayaan dhibka Ottawa uu yaala meel walba yaala magaalo walba yaala marka in la isku xirmo kulli qofka daay ka dhawaajinayo wadaadku yaha wuxuu yiri faraha adaa yaani isku wada imaada fista noqonaysa xoog yeelanaysa marka magaalo walba in la isku duumaan rabnaa kulli magaalooyinka dhan ay isku duumaan oo isbedel guud aan raadino waxa weeyaan wala anaga message-kaygu waxaanu nahay hooyooyin Soomaaliyeed oo muddo soo rafanayay oo jeclaa yacni
niyadayda iyo qalbigayga waxa ku jira community-gayga kala daadsanidiisa ay aad iyo aad u dhibaysay oo jeclaa inay mar helaan time ama waqti ay ku qabtaan dadkooda si isugu keeni lahaayeen dhibaatooyinka badan ee dhacaya waynu leenahay aan markasta dhibaato inaan ku cararin runtii waynu leenahay ilmo aad u tiro badan oo aad u gaaray horumar oo boqolkiiba waxaan oran karaa ilmaheenu waxay horumar gaadheen 75 intaas yar inta kale 25 ayaa laga yaabaa inaynu saynu rabnay aan noqonin iyadana runtii waxaynu qaban karno waxa sidaan ku qaban karnaana waxay tahay si wada jir ah oo istaag ah oo anaga hooy ahaan isaan isugu soo taagnay ilaahay hortii baan isugu soo taagnay waxaanu aad iyo aad u jeclaysanay inaanu helo wax nala qabta oo sida dhalinyarada maanta youth-ka diyaarka ah ee Soomaali Canadian taagan youth waxaan u arkaa inay nala qaban karaan wixii aan rabnay oo inaanu ku midoowno inaanu wada qabano oo ilmahayagii wixii aliyaala wixii naga dhiman aan iskaashi ku wada qabsan karno gacmada jirba wax ku gooyaan bay tiraahdaa Soomaalida ku mahmaada farq kaliya forma dhaqdo in badan baynu lahayn different yani himeelo badan oo kala degdegan yahay ama community ha noqoto ama ha noqoto urur kale ama waxaynu u baahanahay hadda saan u arko one umbrella inaan isugu nimaadno one umbrella daas waxay ku iman kartaa Soomaalinimo midnimo wada tashi wada socod isu imaansho aragis dhaafsi in la wada hadlo in la yiraahdo maxay naga khaldan waynu soconaa dad aad u aqli badan baynu nahay dad diin la baynu nahay haddana waxaad moodaa inaan pointski aynaan marnaba soo taabanaynin anigu maanta hooy ahaan waxaan leeyahay aynu midowno aynu isku mid noqono ururadeena badan ee banaanka daadsan ee maanta Toronto ka buuxana ilaahay waxaan ka baryayaa inay noqdaan kuwii nagu soo wada hushubta ee aynu isugu nimaadna hal umbrella caawa waxaa halkan fadhiya oo anagu ah hooyooyin waxaa fadhiya hooyooyin kale oo business ah waxaa fadhiya Somali Canadian youth oo iyaguna diyaar u ah hooyooyinkii gidigay inaan isku mid noqonay waxaan ugu soo biiray sidoo kale sportski oo iyaguna qaybtii afraad noqday marka alxamdulillah waxaad arkaysaa inay indhihii noo furmayaan inaynu ka baxayno mugdigii iyo madowgii daacad ha laga noqdo waxaan qabsanayno si midnimo ha la isu taago anagu waxaan malanayaa hore loo wada hadlay hadal sii wadi kara maayo waxa weeye qof walba hore loo sheegay wax badan oo sii sheegaa ma jirto hadda danta hadafkaygu waxa weeyaan anaga inaanu samaysano wax na anfaca oo ilmaheena kii shaqo maanta isku dhamaysta ee jaamacad ka soo baxa sidii loogu heli lahaa meel uu ku soo hirto iyo dadkii gacan qaban lahaa iyo dadkii hagi lahaa waxaan u baahanahay anagu haddaanu maanta hooyooyinkii nahay dhammaan it wada jir iyo ururka dhalinyarada inaanu isu taagno sidii aanu heli lahayn center anaga noo gaar ah oo ilmaheena ay ka heli karaan wax kasta ay ka heli karaan YMCG ay ka heli karaan dacwad center ay ka heli karaan meelihii waxbarasho gaar ah ku qaadan lahaayeen ay ka heli karaan sidii ilmaheena rehab loogu siin lahaa ilmihii waxoogaa inaga yara qaloocda meelaan ku tarbiyaysan karno inagu oo inu ku soo qabsan karno waxaan aniga pointigaygu maanta waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan inaan ka hadalno danteena iyo danaheena Soomaaliyeed Soomaalinimo dad wada wanaagsan waynu nahay insha Allah ilaahay waxaan ka baryayaa inaynu meel isku soo wada ururno waad aragteen daay bahalkeedii maxaa la yiraahdaa aboorka waa aboor intuu la egyahay waad aragteen haddana wuxuu ilmihiisa u dhisaa dundimada aragteen dundima ma taqaanaan Soomaali dad ku taqaanaan dundima u dhisay inagu dad baynu nahay noolo inta la eego ilaahay xoga inta in siiyay ilmaheena dundima waxa tiri iskada waxaynu u dhisi karnaa bilino waxaynu rabnaa aynu ilmaheena isu taagno aynu gacanteena hurno aynu qalbigeena nadiif ka dhigno aynu midowno dadka halkan isugu yimid waxa uu ka wada shaqeynayna waxa weyn midnimada Soomaalida ama dhibaatooyinkana wada haysta hooyo kasta oo caawa meeshan joogto si gaar ah ay wax walba u tabanaysa ama ha ahaato ilmo ka xiran ama ahaato mid sugaysa maxkamad yani informationadaas waxa wanaagsanaan lahayd hooyooyinka experience-ga u leh in la wadaagaan hooyada kale ee markaas wixii ku cusub yihiin ee open la soo noqdo waa muhiimad ugu weyn oo moodo inteena badan in aan mataqaanaa aan kala qarano informationada cunugga dukaa xiran yahay fadlan la wadaag qofka kale ee dhibka markaas ay ku cusub tahay halkaas one point baan rabaa inaan ka sameeyo tan kale qaybta anaga waa laba qayb saddex qaybood sida hadda abaaya qatar ay sheegtay qaybta businesska
waxaan u malaynayaa Soomaali entrepreneur baa waa wadanahayba oo yacni by nature baa u nahay laakiin in la mideeyo fikirka oo qof walba fikirka uu hayo uu la yimaado miiska uu yiraahdo talow halkan amaan wax ka zaa'idina waa wax wanaagsan يعني هلا بخيل فكرك وwax wanaagsan oo maybe horumar weyn of in future ah lagu wada gaari karo haday center ay tahay sports haday tahay mataqaana business import and export walaalayaal hal iscafiyo horta marka ugu horeysa Soomaali ahaan hooyooyin ahaan walaal ahaan hal iscafiyo qalbigana hadaan nadiif laga ahayn wallahi wax ma hagaagayaan والله ودن بانو هاغاغين كان جوغنانا نو هاغاغينين waxaan ugu badan waa xasidka inta qofka kale walaalka xasdayso wallahi laba talaab ma qaadist ya uhibe qofka aragto inuu wax qabsanayo ma sha Allah de ilaahay hortaada khayr ha dhiga hada adiga awood inaad sameeysid ya say ma sha Allah ilaahay ha idin barakeeyo ya xasidka quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka dardaarmay ilaahay wuxuu yiri ma wanaagsan xasidka yaan lis xasid saan sheegay dad badan aan isku dhex jirno hooyooyin most of them mothers well educated people that is advanced in business ku waxay socotaa muddo almost 1 year haddaan khaldaneen 1 year waxaan sheekadan soo wadnay waxaan u fikirnay the reason aan dhahnay business aan ka hadalno oo noqono Soomaali adduunweynaha hooyooyinka maxay dhahan community center u baahanahay. At the same place, we build a community center. It has a swimming pool, it has a gym, it has a consultant place, and we become the invisible hand. When I say we, dadka waaweyn. Ilmaha yaryarka wax bartay, they will be the running model. Aniga that's my aim. Anaku we become the invisible hand. And that qaarkood markaan dhahay, you know, أنا ذنك هذا العقد بحسين أو أيدير ككنتين المها يركا they cannot run أحيانا إن society هذا علمي يركا وحي سوبين كر responsibility سوبين كرين عنده أنا we never did our job well عنده if هذا عنقي عندي وين a 25-year-old وجامعة كصبح أنا الملكو آمين كرين we never did our job well. So we have to we have to make them be somebody. If they're not important to us, they will never be important to anybody else. Because caruurtiina intaad haysataan waa sanadooyin tirsan. If you cannot go back intaad gadaal u fiirsatiraadid caruurteydii yani waqtiga aan la qaatay sidoo ahaa then waanu khasaarnay. And that's what I can say. ما يفهمتين تلابادنا ميد لاباد اللي يقولوا solution أنا أقول solution ما هيو solution كو it's within us أنا قا solution كهينا جود أهان ما يفهمتين مركا أنا قوينا نحلكي عن كنا وحل عن أنا وحنو أرجعنا أنا قوينا حلي هاي أدان سكو حيل كنا قفل بكارير كأوروا يقف كأمش ومحيته إن قف كارير ككوتشرو it will be very very helpful because resources بانو هاي سنة one for the سنة هاي but we also rich so we have to be able to connect each other and حدي أنا وقف ويسووا هذا you know وحسن وباعنا هاي I think I consider myself to be a bit resourceful. As you know, the objectives of the Somali Canadian Youth Campaign is to raise awareness and a call for action in issues related to gun violence, systemic barriers, civic engagement, and social justice. In regards to the mentorship, this was something that I personally am working on with other young Somali professionals in our community. What I see is that constantly with the Somali community, we are always highlighting the bad. This kid got shot, this person is in jail, and so forth. But we're not highlighting our success. We're not highlighting our members of our community who are contributing to our community, who, mashallah, have reached amazing places in our community. And we exist. There's a lot of young Somali people who are
who are motivated and who are young professionals who are contributing to the greater society in Canada. Just to touch a little bit on what Hallie said, I strongly believe on that if you become successful and you finish your education and you get a good job, that you should be able to give back to your community. And I think with Somalis, we don't do that enough, and that's a big problem that we have. Along with what Sadiq had said, and some of you may know, and now you guys do know, I did lose my brother 10 years ago. So that has been a motivation for me to want to see a change and for us to beat and come out of our systematical barriers that we've been facing as a community. So, inshallah, hopefully something will change, something will come out of what we're doing. We've united the mothers, the youths, and now we just need to bring more of our results to the table. mahad celiyo hooyooyinka oo soo qaban qaabiyeen this event maanta aad iyo aad u mahadsantihiin group waxaa jira hooyooyin culus maasha Allah magaalada wada oo aad iyo aad u dadaalo inay change sameeyaan yes hadda anaga Somali Kenyan youth aan nahay aan dhalinyarada muuqato but without their support aan la'aantooda waxaan qaban lahayn malahan so maasha Allah jazakallah khair so Somali Kenyan youth waji malaha this is something oo qof kasta leeyahay qof niiga xigo malaha qof niiga nooga dhow malaha like closer maahan this is something aan sugayne for so long so alhamdulillah I'm very happy 2016 waan isku imaanay all of us everybody organizations iyo magacayaasha dhan waa la wada dhigay so maanta here I'm just here as Najma that said Somali young youth marka so I'm so happy that waxaan gaarnay horumarsigaas so mashallah that we're all ready and I want to mahad celiyo sports teams ka hooyooyinka hadeertaan xataa abooyin badan la helay abooyinkii waa la helay abooyinkii absent ahaayeen marka aad iyo aad aan faraxsanahay tala you guys know abooyinkii waa la helay marka hadda we're complete so alhamdulillah we have a good team haysanaa marka we can only move forward hadda ka bacdi all right I don't know. Marka, so I just want hal waxaan ka codsado waalidiinta. So mashallah all of you guys waxaa qabtiin ilmo mashallah talented we have university graduates qabna oo xaafid quraanka wada barta wax ka sameeya hal qalad leedihiin when your kid makes out halada listen Somalida iska dhaaf just go do your thing. So it's very important in hadin cuniga come back to your community come back to masajida la xariir dadkii inay soo dhaxgalaan so ayagina they get to know us cuz hadirtan there's that separation so markii cunigi soo noqdo and they coming back to their community and giving back it means a lot markii gabdhihii yara arkaan gabdho kale ka waaweyn aniga I'm always looking for mentors I was the first group kaliga iska socday so hadirtan gabdhihii yara jiro that we all of us are mentors oo wadanahay inaan barano that mentorship roles for gabdhaha and wiilasha waa tahay isla docda kale dadkii aan kula kulnay xabaalaha waxaa ka mid ahaa Cabdullaahi Ciise Xamari Cabdullaahi ku soo dhawow barnaamijka maxaad ka oranaysaa waad u jeedaa Soomaali maanta waa isu timid iyo muslimiintii inankii yaraana waa la aasay oo tigiis ahayd dad badan baa ka soo qayb qaatay maxaad ka oran lahayd bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa waa maalin murugo dhammaan murugadaas waxay u taallaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan Toronto waa murugo aynu hadda ka horna wax badan nooceeda oo kale soo aragnay marka ugu horeysa waxaan doonayaa anigu inkastoo aan ahay kamid ahay qoyska wiilka abtigiisa ahay marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dhammaan mujtamaca Soomaaliyeed ee Toronto sababtoo ah wiilka yar halkan ku dhinta maanta qof kastoo Soomaaliya waxa weeye waa waalidkiis weeye ama waa walaalkiis weeye inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun marka ugu horeysa dhammaan ilaahay ha naga samarsiiyo mar labaad waxaan rabaa qoys ahaan inaan u mahad celiyo dhammaan community-ga Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan adduunka meel walba telefoonadayadii waa buuxsameen sidaas baad ku garanaysaa Soomaalida waxa isu tahay sida ay u jeceshahay marka waxa weeye tacsidiina loo ka tacsidiinay iyo booqashadii aad iyo aad ayaa mujtamaca Soomaaliyeed ugu mahadsan yihiin murugadu Soomaalida kaliya ma ay taaban waxaad ka garanaysaa qofka markaas ama dhinta ama wax gaaraan sida loogu murugoodo marka deriska iyo asxaabta iyo saaxiibada qofku waxa uu yahay halkaas ka garanaysaa waxa kale oo iyaguna waxa weeye aad iyo aad murugadan aad uga qayb qaadanayay deriskii reerka
oo runtii aan idiin sheego aan Soomaali badan aysan ku jirin oo dad ajnabi ah halka waxaad ku garanaysaa qoyska ama taariikhdiisa ama qoys ahaan nooc ay yihiin Cabdulrahmaan Caynab oo aan abti u ahaa waxaan leeyahay he was one of the best kids Soomaalida waxa weeye waa tragic halka Maxamed Yuusuf baan uga jeedaa waxa weeye wiilkii ka horeeyay kan wiilkiisii waa halkan ku aasno isku meel ayaa lagu dilay waxaan leeyahay waa masiibo in haleeshay weeye waxaadna moodaa inay gaar noo tahay ummadda Soomaaliyeed sidaas daraadeed maantana waxa weeye waxaan rabaa inaan xoojiyo khudbadii masaajidka maanta Sheekh Abubakar oo ahayd war marka aynu waxa weeye waqti aynu wax qaban karno haddaynu wax qabsan weyno waqti aynu waxba qaban karin kama hadli karnayn waxa weeye in badan baynu wiil yar oo wanaagsan aynu qabrigiisa aynu dul taagnayn waxaan farayaa ummadda Soomaaliyeed mujtamaca Soomaaliyeed Toronto in aynu keenno talo aynu kaga bixi karno waxaas khudbadii Abubakar Saas bay ahayd maanta waxa weeye maxaan ku yiraahdaa wax maalin walba dhacaya waxa weeye ummaddu waxay ka faa'iideysaa wax ku qabsataa waa aragnimada maalin walba waxa weeye waxaynu arkaynay tan mid la mid ah wiil yar oo wanaagsan oo aan ognahay oo maxaan ku yiraahdaa waa epidemic weeye waa masiibo waxa weeye wax inaga gaar inooga dhigayna anigu ma garanayo laakiin waxa weeye waxaad ogaataan ummad waliba wixii iyadoo ay qabsato iyo sida ay wixii dhibaatooyin ka hor yimaada ay ugu diyaar garowdo ayaa uga gungaari kartaa waan ka qaban karnaa wali waqti baan haysanaa waxaan farayaa waalid maxamed yuusuf horey ayaa wiilkaaga meeshaan loogu dilay la keenay isla xabaalahan maxaad ku dari lahayd inta uu Cabdulaahi Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed waa nasiib darro maanta maalin walba inaan wiil dhalinyaro dugno waa in u baahan wax laga qabto barnaamijka yani waa qaban karnaa inta isbalno konton qof inay maalin walba imaato waa laga fiican yahay waxaan oran lahaa Soomaaliya hurdada ka kaca dhalinyarada hadda soo socota oo 500 oo dhalinyaro ayaa badda yani badda la tagtay marka ma oga waxay ku soo socdaan annagana halkaan dhalinyaradii nagu dhimanayaan iyaguna halkaan ku soo ordayaan marka waxaan oran lahaa dawladda haday noqoto tan Kanadana inay wax ka qabtaan dhibaatada Soomaalida dhalinyarada haysta dawladda Soomaaliya inay wax ka qabtaan dhalinyarada ku soo yaacaysa dholalkan qaladeed I'm sure inay wax u qaban karaan marka walaal waa mahadsantahay Naasir Maxamuud ama Cabdinaasir Maxamuud waxa uu ka tirsan yahay odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto mudane ku soo dhawow maxaad ka oran lahayd arintan maanta dhacday wallahi waxa weeyaan dhibaato Soomaali oo dhan haysata ummadda Soomaaliyeed inay arintan isaga timaado hoos loo eego ayaa qurux badan waa la wada arkayaa cid walibana way ogtahay waxa jira laakiin damiirkii baa wali shaqayn la halkaasaan ka baxaya waxaan se jeclahay inaan halkan uga tacsideeyo Cabdiraxmaan Caynab iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo dhammaan reer Caynab Faarax Miraaf oo dhan meel kasta adduunka ka joogan baan leeyahay Ilaahay samir iyo iimaan haynaga wada siiyo dhammaanteen ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay arrintan waa arrin soo noqnoqotay ha laga tashado assalaamu calaykum waan gartay Cabdulaahi maxaad u soo jeedinaysaa ama aad faraysaa ummadda Soomaalida inkastoo maharin hadal la isiraahdaa ay arintu u egtahay oo meel walba Soomaali ay ad arkayso inay ku baaba'san tahay dhulkii wadankeeni bay ku geeriyoonayaan qaaradda Afrika badweynta India iyo badda cas iyo badda cad oo Mediterranean-ka iyo badda Atlantic-ka dhammaan way ku hoobanayaan ama ku baaba'ayaan maxaad fari lahayd ama soo jeedin lahayd waxaan farayaa waalidiinta waxaan farayaa mujtamaca Soomaaliyeed oo dhan maalin walba wiil yar oo waalid ku soo tacbay oo si fiican loo soo koriyay oo hooyo ilaa maalintii uu dhashay ilaa maanta daba taagnayd maalin walba horteeda in lagu gowraco waxa weeye waa arrin aad iyo aad u adag weeye waxaynu u baahannahay inaynu arrintaas si maartay aynu ka tashanno waa inaynu isu nimaadnaa
waa inaynu wax meel dhiganaa waxa weeye mar walba waxaa la isweydiiyaa 4 cashaan hadda iminka ay tacsidani socotay gurigii baanu joognay ummado badan oo deris waan Soomaali ahayn cid waliba waa imaanaysay Soomaalidu su'aasha isweydiisay waxa weeye ma la hayaa cidii wiilka dishay de waxa weeye lama hayo weey waxa weeye markaas maxaan ku yiraahdaa war masiibadaas wayna haysataa kuma dhamaan karno meesha tan waxaynu sugaynaa waxa weeye maalin walba in maartay mid maartay la gowraco la qasho waxa weeye waa inaga inagu xiran tahay waalidiinta waxaan ka codsanayaa iyo dadka ama systemka meeshan ama wadanka kan ama maamulada ama ku jira waxa weeye waxaan ka codsanaynaa in aynu isu nimaadno in aynu wax go'aan gaarno abukar maanta wuxuu ku gunaanaday hadalkiisii warbalaan wax isku ogaano aynu cararna xataa waa hadaynu de aynu meesha u sii adkeysan karin aynu cararna xataa waxaynu ku maxaan ku leeyahay aynu ku tashan karno waxa weeye hadal badan uma baahna maanta waa murugo waa aad iyo aad baad uga aragtaa waxa dadka meeshaas jooga yacni oohinta iyo shucuurta iyo dhibaatada iyo murugada insha Allah waxaan rajaynayaa inaynan murugo taas la mid hadda ka bacdi aynan halkan isku iman mar labaad waxaan ku celinayaa dhammaan qoys ahaan aad iyo aad ay u mahadsan yihiin ummadda Soomaaliyeed wadanka meel aan la ka soo wicin ama meel aan loo ka iman ma jirto aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin waxaan kaliya ku kala tageynaa aynu tashanno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gabagabadiina waxaan kaga tegaynaa ubadkiina af Soomaali kula hadla اللهم أعده عذاب القبر اللهم أعده عذاب القبر وعذاب النار وأدخله الجنة وأدخله الجنة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفي على الإسلام إلهي قبرك هو نوري قبرك هو واسع سؤال الله أفضل اللهم ثبته بالقول ثابت اللهم ثبته بالقول ثابت اللهم ثبته بالقول ثابت اللهم ثبته بالقول ثابت إلهي أننا هنود بداف إلهي هنود بداف إخواني إلهي أننا هنود بداف توحيدك الله نقدر توحيدك الله